waxaanu maanta halkan u nimid inaannu kormeerno shaqadan halkan ka socota laamiga oo ah shaqo weyn oo ay dadkeennu u baahnaayeen. waxaad ogtihiin dhibaatada lagu qabay safarka Gaalkacyo Garowe, gaar ahaanna intaas u dhaxaysa Cagaaran iyo magaalada Gaalkacyo oo waddadu ay aadka uga jajabneyd. waxaa ka socota shaqo lixaad leh. shirkadda Kibako ayaa gacanta ku haysa. laamigii ayaa hadda la qaadayaa meelihii aan suuragal ahayn in la kabkabo. kadibna dhismaha iyo xoojinta ama dayactirka iyo samaynta laamiga ayaa ku bilaaban doonta sidaan qiyaasayno. Allah awoodda leh ayaa wax dhameeya. waxaanu Allah awoodda looga mahad celinaynaa suuragalka hawshan uu suurageliyey. markaas kadibna arrintani waxay ku timid codsi dadweynaha Gaalkacyo ay u jeediyeen madaxweynaha dawladda Puntland safarkii ugu dambeeyay oo halkan ku yimaado. waxaa muuqata in madaxweynuhu uu ka jawaabay codsigaas, shaqadiina halkan ay socoto. madaxweyne waa mahadsan tahay. dadka reer Gaalkacyood gaar ahaan degma Gaalkacyo gobolka Mudugna jawaabtii ay ka filayeen waxaan filayaa inay maanta hayaan. dhammaystirkeeda ayaa dhiman, hawshiina waa socotaa. annaguna kormeer ayaan u nimid. waad mahadsan tahay. dadweynahana waxaan leenahay ka qayb qaata ama saacida shirkadda halkan hawsha ka wada, gaar ahaan wixii shaqaaho idinka beegmaan ay idinka baahdaan inta ay hawsha ku dhex jiraan insha Allah. waad dareemi kartaan yani cid walba oo waxa way gobolka Mudug joogta ama u kala safartayba way dareemi karaan baahida wadadan loo qabay. muddada 15 sano la soo dhaafay gobolka Mudug wuxuu ku taamayay in isku socodka Gaalkacyo iyo Garowe ay ku soo aruurto xilliga saxda ahayd iyo saacadda saxda ahayd. dhib badan baa lagu qabay, bulshada iyo deegaanku ku qabeen. 6 saac oo kaamila ilaa 5 saac oo kaamila loo kala socon jiray gaadiidku sida u kala weyn yihiin oo kala culus yihiin. kuwa xamuulka sida oo sida waxa la yiraahdo bagaashka iyo raashinka sida 3 maalmood bay u kala socon jireen halkaan iyo Boosaaso, iyadoo aan ognahay galabka markay Boosaaso ka soo baxaan inay isla habeenbar Garowe soo gaaraan. baa Garowe iyo Gaalkacyo u kala socon jireen 2 maalmood oo kala nasan jireen. ilaaha fadliga iska leh. marka labaad waxaan rabnaa inaan u mahad celino madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo baaqi iyo codsigii waxgaradka iyo guddiga horumarinta iyo maamulka heer gobol iyo heer degmaba ay jeediyeen oo ah baahida wadada loo qabo. insha Allah tacaala madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa fayskan dayactirka ma ahan laamiga ku xijin doono insha Allah tacaala. waana bogaadinaynaa, waana soo dhaweynaynaa. waxaan kaloo bulshada waxa way ugu baaqaynaa in wadooyinka iyo horumarka gobolka ka socda la garab istaago. dayactirkaas oo ku yimid codsashadii degmada Gaalkacyo safarkii madaxweynaha ugu dambeeyay Gaalkacyo uu ku yimid ay ku codsatay. madaxweynuhuna uu ballan qaaday isla markaana shirkadda Kibako ay qaadatay mas'uuliyaddii iyo qandaraaskii dayactirka wadada. marka koowaad waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo codsigii dadweynaha reer Gaalkacyood ama gobolka Mudug ay codsadeen ka jawaabay. madaxweyne waa mahadsan tahay. anoo ku hadlaya guud ahaan shacabka gobolka Mudug waxaan kaaga mahad celinaynaa codsigayagii aad naga aqbashay iyo weliba fulintii oo isla maalintiiba la amray shirkadda Kibako oo qandaraaskii qaadatay. aad baan kaaga mahad celinaynaa madaxweyne. intaa ka bacdi waxaa muuqata horumar ku saabsan xagga jidka wadooyinka dhammaan guud ahaan Puntland oo dhan gobolka Mudugna uu qayb ka yahay. sidaad la socotaan burburkii baaxadda lahaa oo wadooyinka ilaa Boosaaso ilaa Gaalkacyo haystay uu soo dhammaaday ilaa iyo wuxuu soo gaaray degmada Xarfo. haddana waa soo dhaafay bacaadweyn buu soo gaaray. maanta halkaanu marayaa. waddadaasi waxay nagu qaadan jirtay safarka markaanu u gallo caasimadda muddo 6 saac ama 7 saac. gaariga dheereeya waxaa laga yaabaa inuu 6 saac ku tago, laakiin gawaarida kale
oo safarka ama ku waaweyn 12 saac inay qaataan baa suuragal ahayd haatanna subaxii markaad halkan ka baxdid 2 saac gaariga dheereeya ama 3 saac 2 saac iyo bar baan ku tagnaa Garowe waa ka soo shaqo tagi karaa xataa haddaan seexanno habeenkii dadkii xanuunsanaa oo dhakhaatiirta aadi jiray dadkii waayeelka ahaa carruurtii waddooyinka mari jiray dhammaantood waxaa u sahlanaatay in si sahlan oo raaxa leh waddada ay ku maraan ganacsatadii iyo baabuurtii kala kulmi jirtay dhibaatooyinka fara badan oo baabuurtu ay ku jabi jirtay gaadiidku uu dhib ku hayay xamuulka weliba markay wadaan kuwa waaweyn oo xamuulka ah mid taayirra banjariya mid hoobas u baxo mid candhada jabiya mid kaabaanna jabiya dhammaantood waxaad mooddaa in ay ayaguna ka soo kabanayaan oo ay ka mahad celiyeen jidkan iyo maridiisa waddankii waa fududaaday xilliyadii aanu sheegnay oo maamulku sheegay oo ahaa ilaa 7 saac 8 saac lagu tagi jiray Garowe maanta in 2 saac iyo bar 3 saac lagu tago waxaa suurto geliyey infrastructure-ka la sameeyey waa bogaadinaynaa waa u mahad celinaynaa dawladdan hadda jirtana sida ay uga qayb qaadatay dhismaha infrastructure-ka Puntland waa si gaar ah ugu mahad celinaynaa sidoo kaleeto waxaan rabnaa inaanu ka guddiga horumarinta ahaan aan u mahad celino shacabka Gaalkacyo oo qayb ka qaatay sidii degmada ay u yeelan lahayd horumar dhinaca jidadka ah hadda oo la bilaabi doono roundabout-ka isbitaalka Gaalkacyo oo si casri ah loo dhisi doono iyo ilaa iyo jidka taga kontaroolka koonfureed ee Gaalkacyo taasna waxaa suurto geliyay waxa weeyaan ka qayb qaadashada bulshada hadday qayb ka qaadato oo hoteelada iyo guryaha iyo shirkadaha laamiga ku soo jeeda ay qaybtooda qaataan waxaa sahlanaanaysa in la dhiso dadka reer Gaalkacyo oo dhanna waxaan iyo xaafadaha oo dhan ugu bishaaraynaynaa waxa weeye in guddiga horumarinta uu diyaar u leeyahay ciddii qayb ka qaadata muxuu ahaay waddadaas hormarta inay iyaguna qaybtooda ka qaadan doonaan una fududayn doonaan waxaan idin leenahay oo u mahad celinaynaa khidmadaha ay bixiyaan shacabka Gaalkacyo oo runtii wax badan suurto geliyey taasoo aan is leenahay dadka inta aan bixinna inay muxuu ahaa ku dhiiradaan inay dhammaystiraan waxaan kaloo u mahad celinayaa shirkadda Kibaarko oo runtii muxuu ahay asadka aan leenahay haddaan nahay muxuu ahay Puntland gaar ahaan gobolka Mudug wax badan ka qabatay hadda hawlaha badan oo aan qaban doonana qayb ka noqon doonta aad baan ugu mahad celinaynaa waa u jeedaan shaqada tirada badan halkan ka socota hadda waxa weeyaan waa burburintii iyo simidii laakiin waxa u haray laamigii iyo simidii baa u haray marka waxaan is leenahay Garowe 1 saac bar baan ku tagi doonaa sida gudoomiyuhu sheegayna Gaalkacyo waxay marti gelin kartaa adeegyo badan oo fududaynaya maadaama awoodeeda ay leedahay waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka iyo maayarka degmada oo runtii dhiig cusub ku soo kordhiyay magaalada Gaalkacyo muddadii ay joogeen wax badan ka qabtay niman dhalinyaro ah oo runtii ku dadaalaya inay habeen iyo maalin shaqeeyaan waxaan idin leenahay anagu waa idin garab taagannahay shacabka Gaalkacyo waa idin garab taagan yahay dhammaan dadka oo dhan waxaan leenahay ka qayb qaata horumarka gobolka iyo degmada